intii awood iyo intaan awoodin inay qayb ka qaataan qofkii awood inuu wax ku soo taro qofka awoodin inuu maanta wax ku bixiyo ducada iyo inuu sheer gareeyo si oo marka inta saaxiib ee ku xiran oo marka kumanaanka qof inay gaarsiiyaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Caasha Xasan Xuseen. waxaa la iga helay cudurka kansarka la dhahayo oo iga baaray Dr. Shaafi buraaw koo dhahay laakiin gadaal dambe kansar waa markii baaritaanka la sameeyay. walaalahay muslimiinta waxaa ku codsanaya si uu dhaqsiyaha badan inay igu caawiyaan dalka wax ma loo qabo karaa lahay dibadda ma ogiye. waxaa muslimiinta ka codsanaya si uu dhaqsiyaha badan inay caawiyaan caloosha way xanuune kaliya way xanuune qaska way xanuune kaadiyaasta way xanuune kaadida markaa kaadinayo malax iyo dhiiga soo raacay. ilaahay oo arrinkaas wato laakiin degdeg wadanka looga bixiyaa la gabadhaan muslimiinta la fariin u diraa in ilaahay mar walba caawinaadana way socotaa laakiin caawinaada way saa'id ma aha inay si ugu dhaqsiyaa badan iyo caawiyaan. lacagtiina maxaa la lahay 33,000 waaye lacagta la isku wadaayo anigii ma awoodno. alxamdulilah muslimiinta baa ku diraya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir intooda baaqa u diraya in caawinaad degdeg ii fuliyaan. xanuunkeyga waa batay habeenkii ma jiiftay inta masku gedi kari waa iska soo jeedaa dhabarkii oo xanuuna jiifka iga batay. marka ilaahay ayagana soo dhiibo muslimiinta si uu dhaqsiyaha badan Allah naaga soo qaado. oo hormuud furaha eber 92 47 52 ii daabna maxaa waaye eber 6 92 47 52 akoon Salaam Bangi waa 35 57 93 75. walaalahay si uu dhaqsiyaha badan igu caawiyo ilaahay dartiisa qofkii maxaa la qof dhiban caawiyo ilaahay asna meel xun kuma hilmaamayo mar walbana oo saaciida ilaahay idinkiisa ilaahay dartiisa waa caawiyo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan walaalaha Soomaaliyeed. salaan kadib waxaan halkan u imid inaan ka warbixiyo xaaladda caafimaad ee ku sugan tahay gabadhan xaaskayga ee hadalkeeda igu horeeyay Caasha Xasan Xuseen oo laga helay markii ugu horeysay cudurka kansarka. laakiin waxaa ka horeysay intaasi buraa laga soo sheegay oo kaadheesta gudaheeda ku dhalatay sida cadeemaha warqadda ay ka muuqdaan. gabadhan xaaladda waxay ku bilaabatay kaadideeda inay soo raacaan dhiig wax malax oo kale iyo xanuuno aad u fara badan. xanuunkan wuxuu soo bilowday waqti hore laakiin 5 bil ugu dambeysay ayay la ildarnaatay. baaritaano badan markii la sameeyay dhowr isbitaal aan tagnay isbitaalada ay ka mid yihiin marka isbitaalka Shaafi oo kale aan tagnay baaritaanadan ayaa laga sameeyay. waxay soo gudbiyeen in buro ay ku taalo kaga taal kaadi heesta in u baahan tahay in laga bixiyo. markii la bixiyay kadibna waxaa loo diray shaybaar loo diray oo Nova ay leeyihiin oo soo cadeeyo marka nooca burada ay tahay. buradana waxay noqotay carcinoma ay noqotay kansar ay noqotay. marka waxay soo gudbiyeen marka dhaqaatiirta isbitaalka Shaafi in gabadhan dalka gudihiisa aan waxba loogu qaban karin ee u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan dibadda in loo geeyo. sidoo kale waxaa tagnay isbitaalka oo marka jaamacadda Soomaaliya ayaan tagnay oo marka Uniso iyadana waxay soo gudbisay sidaas la mid ah oo markaas in gabadhan u baahan tahay xaalad degdeg ah si dalka dibadiisa loogu qaado. iyadana buradii isla sideedii marka ugu jirtaa meesha ay kaga muuqataa.
sidoo kale waxaa tagnay isbitaalka Digfaar ama Ordogan loo yaqaano asagana sidiisa la mid ah ayuu soo gudbiyay dhammaan waxay isku raaceen markaa in gabadhan ka cadeysteeda buro oo kansar ah ee ku jirto eena taabarada tiifaafisay stagekeedna uu maraayo stage 2 uu maraayo ee u baahan sida u dhaqsiyaha badan in dalka looga qaado dibadda loo geeyo si xaaladda caafimaad loogu soo daaweeyo haddii kale waxay ku sugan tahay khatar ay ku sugan tahay ayay soo gudbiyeen sidoo kale waxaa halkan ku yeena marka warqadihii cadeynayay in gabadhan xaaladdeeda caafimaad ee khatar ku jirto ee u baahan tahay gurmad degdeg ah oo markaa ay u baahan tahay marka qarashka waxaa noola sheegay in ay tahay $33,000 inay ku kaceyso gabadha xaaladdeeda in kaada heesta la bixiyo ama kale wax u dhigma in la sameeyo sida dhakhaatiirta ay sheegeen marka saas darteed ayaa marka halkan usoo fadhiisanay oo aan rabnaa in xanuunka gabadhan ay qabto aan rabno in bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan ula wadaagno si xaaladdeeda caafimaad qayb ay kaga qaataan inay badbaadiyaan marka sidaas ayay wax u jiraan gabadhan xaaskeyga waaye Caasha Xasan Xuseen la dhahaa inta hooyaa fadhiso marka xaaladda 33,000 waa qarash aad u badan oo maanta awoodeeda aan la awoodin marka sidaas darteeda ayaa walaalaha Soomaaliyeed aan u soo horfadhiisanay in aan u gudbino xaaladda dhabta ah ee ku sugan tahay gabadhan xaaskeyga Caasha Xasan Xuseen waa qof saaxiib ciyaal waaye alxamdulillah ilaah oo wadwaana siiyay iyada laakiin aad u xanuunsan ilmeeda ma daryeeli karto habeenkii ma seexato maalintii nasasho ma lahan xubnaha dhan waa xanuunayaan oo markaasi uur ku jirta dhan waa xanuune kaadida sidii marka waxay ugu socotaa kaadi dhiig u leedahay isbitaalo badan waa soo daalin ugu dambeyntii waxaan isdhahnay marka walaalaha Soomaaliyeed marka la wadaaga si xaaladdeeda loo gudbiyo marka waxaan rabnaa marka walaalaha Soomaaliyeed intii awood iyo intaan awoodin inay qayb ka qaataan qofkii awood inuu wax ku soo taro qofka awoodin inuu maanta wax ku bixiyo ducada iyo inuu share gareeyo si oo marka inta saaxiib ee ku xiran oo marka kumanaanka qof inay gaarsiiyaan si gabadhan ay marka xaaladdeeda ugu qayb qaataan marka qofkii oo marka saacidaad u haayo gabadhan wuxuu la soo xiriiri karaa xaaskeyga ah furaha Eberwaaye oo EFC 924752 oo EFC ah dahab waxay kala soo xiriiri karaan furaha 924752 sidoo kale akoon Salaam Bank ee leedahay 35579375 waxaan ugu qoran Caasha Xasan Xuseen marka dhakhaatiirta inta badan waxay noo sheegeen in gabadhan sidii ugu dhaqsiyaha badan ee u baahan tahay gurmad degdeg ah marka walaalaha Soomaaliyeed laga qayb qaato gabadhan saaxiib ciyaal waay ilmeeda hadda ma xanaaneysan karto waa cunug ugu jira hadda hal sano jira marka waxay u baahan tahay saacidaad degdeg ah marka Ilaahay waxaan ka toogeynaa in uu iidan caafimaad uu siiyo intii jirana caafimaad uu siiyo intii ka qayb qaadan kartay ka qayb qaataan qofkii wax uu soo diri karaa uu soo dir qofka awoodina in uu si dad badan uu si gaarsiiyo uu share gareeyo si meel badan ay u gaaraan marka intaas أنا حليم محمد بشار إيدو waxaa iga xanuunsan gobordheeya Caasha Xasan Xuseen iga xanuunsan ilaahay waxaa laga sheegay weligay ma maqlan lahaan dhulkan ka dhayngo wax la leeyahay wax kansar la leeyahay laga sheegay makastana ilaahay waxaan igtoowa walaalahay ummadda Soomaaliyeed oo kor iyoona dibadda iyoona waxa tab jiraan inaa ilaahay wax si soo dhiibo gobdhe iyo caawinaano gobdhe iyo qaadaan halahaasan aan ku cogsaha